mahadsanid Cabdi Fataax. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta gelinka dambe ka shiraya colaadda ka taagan gobolka Tigray ee wadankaasi Itoobiya. Kulanka golaha ammaanka ayaa imanaya xilli dowladda Itoobiya ay sheegtay inay isku diyaarinayso sidii taangiyada dagaalka loogu weerari lahaa caasimadda Mekelle. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa xoogagga TPLF ugu baaqay in muddo 3 maalmood ay isku soo dhiibaan, isagoo sheegay inay ciidamadiisu ku hareeraysan yihiin magaalada Mekelle ayna dhici karto in wajiga saddexaad ee dagaalku bilaabmo. Dr. Abiy Ahmed wuxuu hoggaanka Tigray u sheegay in la marayo meel aan laga noqon karin. Dhanka kale, afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa ugu baaqay shacabka caasimadda Mekelle inay isaga baxaan magaaladaasi si ay ugu fududaato inay ciidamadu la dagaalamaan xoogagga TPLF. Wuxuu sheegay in waqtigu gabaabsi yahay maadaama uu dhow yahay waqtigii loo qabtay xoogagga TPLF inay dowladda isu soo dhiibaan, kuwaasoo haatan gacanta ku haya dhulka buuraleyda ah ee gobolka. Dhanka kale, madaxweynaha gobolka Tigray Dr. Debretsion Gebremichael ayaa sheegay in shacabkiisa ay doorbidayaan inay dhintaan intii ay dowladda isu soo dhiibi lahaayeen. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka isla markaana ay ku siisiqayaan caasimadda. Itoobiya waxay sidoo kale sheegtay inay iska ilaalinayso in lagu dul dagaalamo nus milyuunka qof ee ku nool caasimadda Tigray, iyadoo aanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya xogaha rasmiga ah ee dagaalka ku saabsan. Haddana labada dhinac ee dagaalku dhex marayo waxay warbaahintooda ku baahinayaan dacaayado dagaalka salka ku haya. In ka badan 40,000 oo qof oo dagaalkaasi ka qaxay ayaa gaadhay dalka Suudaan. Dowladda Qatar ayaa aqoonsatay waalidiinta ilmo yar oo bishii la soo dhaafay lagu tuuray qashin qob ku yaalay garoonka diyaaradaha ee Dooxa. Dacwad oogayaasha Qatar waxay sheegeen in haweeneyda ilmaha ku tuurtay halkaasi ay kasoo jeedo qaaradda Aasiya, isla markaana ay socdaan dadaalo lagu tarxiilayo. Waxaa sidoo kale cadho ka dhalatay qaabka loola dhaqmay haween rakaab ah oo ku sugnaa garoonka markii la raadinayay waalidiinta dhalay ilmahaasi yar. Haweeneydan ayaa wajihi karta 15 sano oo xadhig ah haddii gacanta loo geliyo dalkaasi ay kasoo jeedo isla markaana lagu helo dambigaasi. Waxaana la rumaysan yahay in aabaha ilmaha dhalay isaguna uu ku sugan yahay wadanka Qatar, mana kala caddayn dacwad lagu soo oogi doono iyo in kale. Ilmaha yar waxaa hadda daryeelkiisa gacanta ku haya dowladda Qatar. Ugu dambeyntii, madaxweynaha la doortay ee wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa Antony Blinken u magacaabay inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda ee maamulkiisa cusub, iyadoo uu isku dayay inuu boodhka ka jafo xiriirka isbahaysiga arrimaha dibadda ee Mareykanka, kaasi oo uu dhabarka u jeediyay madaxweyne Trump. Antony Blinken ayaa ahaa saaxiibada aadka ugu dhow Mr. Biden, kaasi oo kala shaqayn jiray siyaasadda arrimaha dibadda. Blinken oo ah 58 sano jir rugcadda arrimaha siyaasadda dibadda kasoo shaqaynayay muddo 20 sano ah, ayaa ku raacay Mr. Biden baahida loo qabo in Mareykanku uu hogaamiyo doorka siyaasadda arrimaha dibadda, taasi oo isbedel ku keenay habdhaqankii siyaasadeed ee madaxweyne Trump intii uu xilka hayay. Magacaabista Blinken oo ay tahay senatarka la mariyay waxaa kaloo dheer in Biden uu magacaabay, sida ay warbaahinta u sheegeen kooxihiisa ka shaqaynaya kala guurka, 2 sarkaal oo kale. Jake Sullivan ayaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha ammaanka qaranka, halka Linda Thomas loo magacaabay inay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay. Wararka caalamkuna waa naga intaas. Aan dib idinku celiyo Cabdi Fataax Suudi oo inoo fadhiya stuudiyaheena magaalada Nairobi.